waxaa maanta si rasmi ah uga furmay xarunta maamulka gobolka Togdheer shirkii isuduwayaasha kala duwan ee laamaha dawladda. shirkani oo ahaa mid saacado badan soconayay warbaahintuna ay dibad joog ka ahayd. markii uu shirkaasi soo ilaaday waxaa warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo ka warbixiyay shirkan iyo ujeedooyinka uu daaranaa. waxaana ka mid ah hadaladiisii sida tan: maanta halkan waxaa noogu qabsoomay shirkii isuduwayaasha gobolka oo runtii wiigiiba hal mar aan isugu nimaadno ayaa maanta noo qabsoomay oo wiigii hore naga baaqday hawlo jiray dartood. waxyaabaha aanu ku soo qaadnay ama aanu ka wada hadlaynay waxa uu ahaa arrimaha nabadgelyada, caafimaadka, roobka, deegaanka, beeraha iyo waxyaabaha maaragtay wasaaraddu waliba waqti xaadirkan ay gacanta ku hayso ee uu maaragtay u qabsoomaya. runtiina warbixin waafiya waxaanu ka dhageysanay isuduwayaasha oo isuduw waliba si faahfaahsan uu uga bixiyay wasaaraddiisa warbixin faahfaahsan uga bixiyay. runtiisa aad ogtihiin gobolka xaaladiisa nabadgelyadu hadda waa wanaagsan tahay. arrintii dhalinyaraduna waxa weeyaan habeenba habeenka ka sii dambaysa hoos bay u sii dhacaysaa oo maaragtay way sii dhacaysaa. caafimaadka wuu wanaagsan yahay. waxaan runtii isla garanay in la sameeyo wacyigelin maadaama oo waqtigii roobka la galay in meelaha iyo reejidhaamaha ee biyuhu ay galeen in dadku biyaha chlorine ay maaragtay ku darsadaan oo runtii aan fursadan uga faa'iideysanayo oo biyaha agtooda ah ay iska ilaaliyaan oo iska nadiifiyaan la iskuna wacyigeliyo inay dadku maaragtay ay iska ilaaliyaan. shalayna waan sheegay maantana waan ku celinayaa maadaama waqti roobaad lagu jiro inay dadku iska ilaaliyaan biyaha laftooda markay dhex marayaan inay danabaysan yihiin iyo kale biraha leyrka inay iska ilaaliyaan. shirkadaha leyrkuna inay xasladaan oo ay maaragtay agabkooda leyrka si fiican ay u jeekin ugu sameeyaan waqtiga roobka aynu ku jiro. arrinta deegaanka oo in deegaanka la ilaaliyo oo wixii hadday jiraan wax ku soo kordhay. arrinta beeraha oo ay jiraan runtii mashaariic horumarineed oo imika beeraha maaragtay saacado loo qodayo. runtii shirkaygaas wuxuu noogu qabsoomay si aad iyo aad u qiimo badan. shirkani uu barasaabka gobolka Togdheer kula yeelanayay isuduwayaasha kala duwan ee laamaha dawladda ayaa ah mid toddobaadkiiba hal mar la qabto kaasoo lagu gurfeeyo xaaladda guud ee gobolka iyo degmada. Nuur Ciise Maxamed, wakiil wareedka telefishinka caalamiga ee SBS magaalada Burco.